Somaliland waxaa ka qabsoontay doorashada madaxtinimada oo si nabadgelyo ah ku soo gabagabowday iyadoo ay dadka reer Somaliland markii saddexaad soo dooranayaan madaxweyne cusub. Doorashadan ayaa la sheegay in markii ugu horeysay taariikhda loo adeegsaday farsamada tiknoolajiyada casriga ah ee iris loo yaqaano oo ah hab lagu sawirayo indhaha iyo wajiga si looga hortago in dadku ay dhowr jeer ku noqnoqdaan codbixinta. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye. olole xamaasad siyaasadeed wata oo 22 maalmood ka socday guud ahaan Somaliland kadib waxay dadweynuhu dareereen inay codkooda dhiibtaan maalinnimadii Isniintii. qof waliba ugu codeeyo musharaxa ula muuqda inuu hogaamin karo Somaliland. dadku waxay safaf dhaadheer u galeen in qof waliba ka qayb galo doorasho qof iyo cod ah oo tii saddexaad ee madaxtooyada ah guud ahaanna noqonaysa doorashadii lixaad ee ka qabsoontay Somaliland ilaa sanadkii 2003 walow cimiladu kululeed haddana dadku waxay u muuqdeen kuwa aan dhibsanayn. magacaygu waa Yaasmin Dahriyoonis waxaan soo baxay saaka afartii habeenimo soo baxay kuyuugaan galay waxaan doonayaa inaan codkayga aan muujiyo taageeradeedana cid aan jecelahay ugu rido mustaqbalka ciidan islayahay dalka wax u qaban doonta. musharaxiinta laftooda ayaa kamid ahaa dadkii codkooda dhiibtay waxaana saddexda musharax madaxweyne xisbiyada u cid wadani iyo kulmiye iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Siinaanyo ay codkooda ka wada dhiibteen goob kaliya waxaana saddexda musharax hore u sheegeen inay aqbali doonaan natiijada una hoggaansami doonaan waxa ka soo baxa gudida doorashada. haddaba doorashada Somaliland ka qabsoontay maxaa laga baran karaa? waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday Somaliland in rabitaanka shacbigu hirgeli karo haddii la midoobo, in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda. sidoo kale Afrikana ay noqon karto mid hogaamisa tiknoolajiyada casriga ah sababtoo ah markii ugu horeysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha. in ka badan 704,000 oo codbixiye ayaa kaararka u qaatay doorashadan si ay u codeeyaan waxaana doorashadu ka qabsoontay 1642 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo 6 gobol doorasho ee Somaliland ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.